hal kiilo oo xalwad loos iyo buskut kala duwan ciida saan u sameeyay ciida soo dhow insha Allah ka faa'iideyso marka wax soo qaata baaquli waxaan ku soo shubayaa koob subag ah subagan isticmaalayo waa kan rootiga la mariyo sixinta isticmaali kartaa kadib bakeeri sokor ku soo daraysaa kadib waa qasaysaa kiilo wax yar dhiman rabo inaan sameeyo oo buskut ah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh xabta salaamo wala shukri kushiin saddex xabo ukun oo kaliya ku soo dareynaa haddaad doonto ka badsan kartaa ukunta haddaad doonto laba xabo ay ku darsan kartaa ama hal xabo ukun waa inaad ku darsid alaabtan qamiir dhamma lagu daro ma fahanteen sokorta shiidan waa isticmaali kartaa aan maanta waxaan isticmaalay sokorta caadiga ah subagii sokorta marka hore isku qasaysaa marka isku milmaan ukunta ku soo qasaysaa kadib saan hada ujeedaa markay noqoto saddex koob iyo bar oo buran ku soo shubaya adiga waa kiilo bakeeri dhiman oo buran ku soo daraya intaas kadib laba qaado aan boora ku darsanaysaa kadib si fiican u soo qasaysaa ugu dambeyntii saan ay ku soo baxay bac qafiif ah afka saaraya 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo xitaa 30 daqiiqo waa dhigi kartaa waa inaad dhigtid soo qaatay timir laftaan ka saarnay timirta markaan ku afurayna saan u habeysana dhinaca kaleeto qaadadii bur ayaa soo gelinaysaa si uusan kaaga dhagin burkii oo budo markaa soo gelisid kadib burkii oo buskutka ku qasnaa sida ugu dhijinaysaa kadib timir soo qaadanaysaa timirta lafta ka saaraysaa kadibna waa soo qasaysaa si fiican halka ayaa u saaraysaa timir hadii aad rabin waad ka dhaaf kartaa bilaa timir samaysan kartaa kadib dhinacyada ka keenaysaa waa inaad si fiican isugu dhajisid hadii aad iga daawanaysid xagga YouTube kood ku cusubtahay subscribe noo taabo hadii aad iga daawanaysid xagga Facebook page-ka follow noo saar insha Allah kadib halkaas isaga dhajinaysaa intaas kadib saas u gadinaysaa qaadada la adeegso sidii marka adiga kula qurux badan oo habaysan kartaa aan lisaan le usoo sameynaya ma sha Allah tabaaraka alaabtan kadib waxa u baahan tahay foorno inaad sii shidatid 200 u geynaysaa dabkana kor iyo hoos foornada kulal roo inaad gelisid xabadii koowaad saas qurux badan ku soo baxday xabada labaadna sidoo kale burkii la qaadada saaraysaa timirta gudaha u gelinaysaa halkaas isaga dhijinaysaa dhinac kale ay u gudinaysaa kadibna qaadada afkeeda sida ugu wareejinaysaa si fiican waa inaad ugu riixdid kor leh hadii aad ka taabatid hadhow waxa waay kuma soo baxay sidee tahay qaybtii koowaad saas qurux badan ku soo baxday waa ma sha Allah u jeedaan hadii aad rabto inaad saas dhaxda ka yeeshid qaadada la saas ugu adeegso hadii sida hore aad inaad dhaaftidna waa sida qurux badan u samaysan kartaa xabada labaad macnaha qaybta labaad burkii oo kuustay ayaa waxa sameynaysaa qaybtan warwareeg oo mafaantay timirta saa u dhaxgelinaysaa kadib waa isku soo laabaysaa marka sida isugu soo dhajisid oo si fiican isugu dhago kadib waxa u soo qaadanaysaa qaadadii intaadan qaadada u qaadanin wax yar ala cashada ku balaarinaysaa kadib qaadada u soo qaado saas ayaa u riixriixaysaa saas ugu tuujinaysaa macnaha ilaa si fiican u galo saa u jeedaama kadib wax yar timir ah soo kuskusaysaa timir yar marka sida u soo kuskustid halkaas afka hore ayaad ka gelinaysaa waa ka ma sha Allah tabaarakallah hadii sharaxaad ah haysanin saas u isticmaali kartaa foornada kullaan gelinaya 200 dab kor iyo hoos 15 daqiiqo kadib waa soo saari doonaa bastooladii waa taasa waxa iga sugeyseen ilaa shalay ilaa xalay leedah gabdhihi aan ka iibiyay bastooladan horta anaa gado reer Nairobi hadii aad tahay maanta waa lagu keeni karaa hadii reer Gaars aad tahay isla maanta waa lagu soo dhiibi karaa si aad bari bas kaga soo qaadatid waana qiimo macquul ah waxyaabo badan ay wadataa waxyaabo kala duwan aan ku sameeynayo muuqaalkan kii ka horeeyay ayuu ahaa kan laakiin buskud dheerkan rabo inaan idinku tusiyo waxa sameynaysaa burkii soo qastay ayaa ku guraysaa halkaas kadibna tan ayaa u isticmaalaynaa tan labada dhinacba afkeeda waxa waa sida sakiinta amal ama zigzaga ama afmishaarta u taqaanidba midna hal dhinac ay ka qabtaa labada buskud dheer waa ku sameyn kartaa tan kisto waxay kaaga dhigaysaa inuu balbalaaran yahay kadib waxa sameynaysaa qaybtan halka hore ee soo aadinaysaa qofkii yaqaan qofka aqaan ka faa'iideyso kadib tan la soo riixriixaysaa ilaa burkii uu ka soo baxo ama ilaa meesha aarto uu ku gaaro kadib saas u joojinaysaa mindiya soo qaadanaysaa halkaas ayaa ka jaraysaa tan labaadna sidoo kale saas la u riixriixaysaa markuu soo baxo gaagaab iyo dhaadheer saad rabto ka dhigo kadib halkaas ayaa ka jaraysaa waaw ma sha Allah tabaarakallah saa u jeedaanba qaybtii koowaad birta idin tusiyaan ayaan ku soo wadaaya wadareemi kartaan had sidoo yahay kan kisto waxa waay uu yar burburan yahay waana balbalaar saa u jeedaanba kana baan ku heystaa kan labaad laakiin waxa waay qafiif dhuudhuub kaaga dhigayaa oo khafiif ah asagana u jeedaan qaybta hoose plain waaye qaybta korona waa sidii zigzag camal ama minshaarta oo kale u taqaanidba
qaybta labaad aan tusinayaa sidoo kale waa kaas isku mid maba ahan kan dhuudhuub waana qafiif saa u jeedaan kii aad marka aragto aad ku samaysan kartaa kadib halka ayaa ka jaraysaa bastoolada buskud dheerka saan ayaa ugu samaysan kartaa aad u fudud yahay indhihiina idin macallin ah muuqaalka xaqiisa hala siiyo like noo saaro mahadsantihiin ramadaanka ilaahay naga aqbalo ciidan ilaahay sanawadi caafimaad hanoo gaarsiiyo aamin yaa rab intaas kadib sidoo kale foornada gelinaysaa foornada kulul 200 dab kor iyo hoos 15 daqiiqo kadib waan ka soo saaray awqa qafiif waa iga gubtay buskudka horta waqtigiisa soo la gaaron rab inaan foornada ka soo saaro aaba irid iga hor imaaday waa soo dogay sheeko iyo qabtay faanti sheeko iyo qabtay aabo sheeko iyo wada maan dhihi karaa waxba ii saaran isug waa iska sii wata sheekada la iska sii dhageystay inta kale ay badbaadi kan la iga gubtay faanti dhib malahan alxamdulillah hadii inta kale iga gubanin waayo waalidka in la dhageysto faanti aabaan dhageysanay warkiis intuu sheekad ii waday oo ii guban gaar kana saas ku soo baxay qurux waaw ma sha Allah tabarakallah lagama sheekeen karo dhadhankiisa caraftiisa waa haydhigin awood dheerka waa kaasa saa u jeedaan bakanna waa kii timirta aan ku habeynay quruxdiisa qaadada lagu qurxiyo u jeedaan isagana ana qamiir dhama ku darin hadaa doontid qamiir waa ku darsan kartaa baking powder laakiin ma ku taabanin faanteen muuqaalka xaqiisa hala siiyo kun la gaarsiin insha Allah kii dheerkan waa kaasa isagana oo qaadadan ku habeynayno timirta gudaha u gelinay waxaan soo qaadanayaa burkii waa dareemi kartaan jileecis sida uu yahay dhinaca kale waxaa ii diyaarsan timirtaan raba inaan soo qaato wax yar timirtaan gudaha u gelinayaa haddii aadan rabin timirta waad ka dhaafi kartaa qasama in timir le lagu habeeyo timirta dhex gelinaysaa timirta markaa dhex gelisid kadibna wax yar bura ku taabanaysaa ama buraad marinaysaa furka intaas kadib waa ku tuujinaysaa si fiican waxaa la rabaa inaad la ekaysiisid kadib kora ka soo riixaysaa ma sha Allah tabarakallah ujeedaan aad u fudud yahay waa ujeedaan hadda foornadan gelinaynaa foornadii kulul dabka kor iyo hoos 215 daqiiqo ayuu ku jiraaya 15 daqiiqo kadib waan ka soo saari doonaa insha Allah insha Allah tabarakallah ugu dambeyntii waa ujeedaan sidoo ku soo baxay buskudka inaba caadi ma ahan weel dabool ku guranaysaa qabow intuu ka noqonayo buskud aad u jilicsan waa lagama sheekeen karo saxankii labaad asagana laba nooc ayaan ku sameeyay kan hadda ujeedaan oo geesaha leh 15 daqiiqo kadib waan ka soo saaray oo ujeedaan ugu dambeyntii sheekadii buskud waxaan soo qaatay mashiinkaas waxaan ku ridayaa wax yar oo heel ah waxaan rabaa heelkii inaan shiido kadib waan shaqshaqayaa hadda waxaan soo diyaarsanaynaa waxyaabihi aan xalwada ku dari lahaa kan waxaaba kastar ama labaniyad dukaanka ugu dhow xitaa waa ka heli kartaa kastarkaas ayaa u baahan tahay hal bakeeri oo kastar ah xalwada markaa sameynaysid waxaad u baahan tahay dab fiican ayaa u baahan tahay dab laciif ah hadaa ku samaysid way ka adkaanaysaa ama way ka halaabi kartaa bakeeri oo kastar ah ama labaniyad ah markaan baaquli ku shubay waxaan ku daray hal bakeeri oo biyo ah kadib waxaan ku daray wax yar oo kalarka jaalaha ah intaan ayaa isku qasaysaa si fiican sida u qastay si fiican intaas kadib waxaan soo qaadanayaa digsiyan dabka saaray waxaan ku shubayaa 4 bakeeri oo biyo ah bakeeriga isticmaalayo waa bakeeriga caadiga ahaa bakeerigeeni macnaa shaaha bakeeriga labaad ayaan ku shubay bakeeriga saddexaad ayaan ku shubayaa bakeeriga afraad waa 4 bakeeri oo biyo ah 4 bakeeri oo biyo ah waxaa ku daraysaa 4 bakeeri waxaan ku darayaa 4 bakeeri oo sokor ah bakeeri koowaad bakeeriga 4 bakeeri oo biyo ah iyo 4 bakeeri oo sokor aan dabka saarnay sida hadda idiin muuqato intaas kadib waxaan ku darayaa hal bakeeri oo shaah ranjiga ah hal bakeeri biyo dabka saaraysaa qaadada hafkeedo caleena ku karkarinaysaa ayadoo saas soo miiraysaa markay burto kadibna waa ku soo shubaysaa iyadana kalarkaas ayaa maxaan ku radaa qurux ka dhigaya xalwada intaas kadib dabka ayaad u dhaafaysaa markay soo buraan ay soo karkaraan ayaa waxaa sameynaysaa labaniyadii ama kastarkii oo soo qastay aad ku shubaysaa waad walaaqaysaa markaad ku dartid kastarka ama waxaan ku radaa labaniyada markaad ku dartid waad walaaqaysaa ilaa ay soo badbado ilaa ay ka soo burta ha ka joojinin hal bakeeri oo subag ah soo dhalaalisay sixin ama waxaa ku darsan kartaa saliid zaytuun
intaas kadib bakeeriga saliidda markaan ku daro waxaan ku darayaa heylkiin soo shiiday. Heyl shiidan markaan ku daro haddii ay heli kartid jooska waa ku darsan kartaa. kadib waan walaaqayaa. markaan walaaqo daboolan saaraya hadda sida hadda idiin muuqato daboolaad saaraysaa 20 daqiiqo dab caadi aan u dhaafaysaa lama hadlaayo. 20 daqiiqo kadib waa kusoo laaban doonaa insha Allah. hadda waa kusoo laabtay saan hadda markay tahay 20 daqiiqo dabka saarnay soo maahan 30 daqiiqo ilaa 35 daqiiqo ayaad walaaqaysaa. waad walaaqaysaa xalwadana waa dareemi kartaa markay diyaar tahay qof walba fahmi karo. xalwada markay diyaar tahay way isku imaanaysaa ayada dhan saliidana banaanka keenaysaa. hadda kow ma joogto oo ujeedaan wax kow jooga ma ahan waqti badan ayaa u dhiman. saliid u keentay saliid markay sida u keento xalwada waa diyaar macnaa wax yar leh ka dhiman. hadda waxaan ku darayaa bakeeri haafkiisa oo loos ah. looskeeni caadiga ah waa loos diyaarsan oo bisil. waan walaaqaa si fiican tahay ayada waxaan u malaysaa inay xumbe ay keenaysa camal wayna israacaysaa wax kala socda ma ahan. waxaan soo qaadanayaa weelkii aan ku gadin lahaa. maasha Allah tabaarakallah. xalwadii sheekadaas ay kusoo dhamaatay. saan hadda markaad u gedisid waa inaad dabooshid bac qafiifan afka saaraya ilaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo wax yar leh inay yara qabowdo un baan rabaa. wax yar kadib hadda xalwada waa kusoo laabtay jileeceeda xitaa mindida markaa ku jirtid waa ujeedaan kuma dhageyso. maasha Allah tabaarakallah. haddii aad isku daydid waa samayn kartaa. xalwadiina saas ayay kusoo baxday. bedelka looska haddii aad rabin sisinaa ka dhigan kartaa. sisin la-aana samayn kartaa looska dhanaa ka dhaafi kartaa haddii aadan rabin. buskudkii iyo xalwadii saas quruxda badan ayay kusoo baxeen maasha Allah tabaarakallah.